madaxtooyada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka taagan khilaaf u dhaxeeya saraakiisha ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku saabsan xiisadda ka dhex oogan dalalka Itoobiya iyo Masar. Waxaa sidaas qoray wargeyska Africa Intelligence. Itoobiya iyo Masar oo isku haya biyo xireenka webiga Niil ee ay saameysay Addis Ababa ayaa dawladdii Farmaajo waxay si toos ah ula safatay Itoobiya. hase yeeshee dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaan weli mowqifkeeda caddayn oo aan dhinac jirin sida wargeyska lagu sheegay. Mid ka mid ah xubnaha sida aadka ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah agaasimaha NISA Mahad Salaad ayaa xiriir qoto dheer la leh Masar. wuxuu 2004 ilaa 2012 ku noolaa Qaahira, halkaasi oo arday ka ahaa, balse xiriirka ayaa sii jiray tan iyo markii uu ku soo laabtay Soomaaliya 2012 ayuu qoraalka lagu yiri Africa Intelligence. booqashadii rasmiga ahayd ee Xasan Sheekh Maxamuud uu Qaahira u tagay bishii July waxa ku weheliyay Mahad Salaad, halkaasi oo madaxweynaha uu kula kulmay dhiggiisa Masar Cabdifataax al-Siisi. waxaa sidoo kale safarkaas qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macalin, kuwaas oo miisaan culus ku leh dawladda aadna ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Mahad Salaad, Jaamac iyo Xasan Macalin ayaa sida wargeyska qoray taageersan in dib loola heshiiyo laguna dhowaado Masar kadib markii uu riixay madaxweyne Farmaajo. si ka duwan safarka Masar oo degdeg ah ugu xigay kadib dib u doorashadiisii, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay 4 bil ku qaadatay in uu booqdo Addis Ababa, wuxuuna ugu dambeyn tagay 28 ilaa 29 bishani Sebtembar. safarka Itoobiya waxaa Xasan Sheekh ku weheliyay wasiirul dawlaha arrimaha dibadda Cali Balcad oo loo arko inuu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dadban. wasiiru dawlaha madaxtooyada Abshir Bukhari iyo la taliyaha madaxweynaha Aweys Xaaji Yuusuf, saddexda nin oo mas'uul looga dhigay inay abaabulaan safarkaas, ayaa door biday in la joogteeyo xiriirka xooggan oo lala yeesho Itoobiya oo daris la ah Soomaaliya, sida Africa Intelligence lagu leeyahay.